xiisada ka jirta maamulka galmudug markan waxa ku soo biiray ururka ahlus sunna wal jameeca haddaba yeela safteen muuqaalkan ay ku daawan doontaa sidoo kale muuqaalkan waxa kaga hadli doonaa ciidamada daacad u ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee ku sugnaa duleedka magaalada Baydhabo halkaas oo ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan iyagoo doonaya inay la wareegaan deegaanada maamulka koonfur galbeed ayaa sidoo kale muuqaalkan ku daawan doontaan marka hore soo dhawaada daawadayaal taariikhdu ay ku aasaysan tahay 28 bishii sanad May sanada 2026 haddii aynu ku bilaawno ururka ahlus sunna wal jameeca oo si weyn looga yaqaano deegaanada maamulka galmudug ayaa waxay la safteen madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor iyadoo si adag uga soo horjeeday dowladda hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud ururkan oo hogaamiye Sheekh Shaakir ayaa sidoo kale waxay sheegeen in markaas ay la safan doonaan أحمد عبد كريم قرقور هدينا دولة فدرالك الصومالية نكدين عيدمدا كوسي قلقليا دولادك مقالة دوسمريب يديكنا مملكة قلمدك أحمد عبد كريم قرقور دب كل أبتدي ديكنا مملكة سيد وانا يا وحو كل مكان دون لغاتي وقانك وقصر أورك أهل السنة والجماعة وحو نكره هذا حالات السياسية ذلك إن قرب القصي ينوسك الدفاع دولة فدرالك الصومالية ururkan oo si weyn looga yaqaan deegaanada maamulkaasi si adagna ula dagaalamo kooxda al-shabaab iyo kooxda Daesh ka dagaalanta gudaha Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in markaan la safan doonaan waa markaasi dowladda hogaamiyo Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor أحمد عبد كريم قرقور وعيدم ميليشيا أو بدن جيد دولات كمجالات عداده يو عاصمة مامور كاسير وسمراب يحرون تبنتويدا أي واحد شيء إن مركان ودون يو إنه دفاع ضد كان مامور كيسا هدي أنا وقد هذا الغلا من حيث دكتاعن مامور كجل مدق كلن هي مركز حرية شين محمد سرادي حمزة عبد بري من هنا الصومالي حسن شيخ محمود أي واحد كسر لما ذي فشل أساعته دولته وحي دوني سأني مركن حكم وغنيسو مامور كجلمدك أحمد عبد الكريم غرغوري دولتي سيانا عندما بدن يكتب برتين مقالوين كجرعلي عداده يديجانا كله أو مامور كاسا وحال قدر يمي رقاق عيدا حلقة دولته عندما قرقر وآدو فر بدن يجيسي دولت كمقالات دوسمرة حرون تكوي لباتنا ترسك عندما دولته مامور كجلمدك ururka ahlus-sunna wal jameeca oo si weyn looga yaqaan deegaanada maamulkaasi kuna sugan duleedka magaalada Dhuusamareeb ayaa waxay sheegeen in markaan ay si weyn ula safan doonaan maamulka hogaamiyo Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor dhinaca kale hadii aynu dhageystayaal eegno wararka ka soo cusboonaanaya deegaanada maamulka koonfur galbeed afayeenkii maamulka koonfur galbeed ugaas Xasan Cabdi Maxamed iyo ciidamo warkacayo ay jooga duleedka magaalada Baydhabo iyo halkaas waxay ku soo bandhigeen dhaqdhaqaaq ciidan iyo cudud ciidan iyagoo doonaya in la wareegaan deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka ahna musharaxa madaxweynaha Soomaaliya ay dowladda Soomaaliya la damacsan tahay inuu markaasi uu qabto xilka ugu sareeya ee maamulka koonfur galbeed oo markaasi galabtay khudbad dheer ka jeedinayay kulan uu la yeeshay waa xildhibaanada golaha waa markaasi golaha deegaanka ee ku soo baxay doorashada qof iyo codka waxa uu kaga dhawaaqay inuu markaasi uu yahay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee dowladdu ay la damacsan tahay inay la wareego deegaanada maamulkaasi asaate lafta garan oo ku sugan magaalada Nairobi ciidamadiisu warkacayo afayeenka maamulkaasi ciidamo kale ayaa waxay doonayaan inay si adag ula wareegaan duleedka magaalada Baydhabo halkaas oo ku sugan yihiin mudooyinka u dambeeyay ee dhaqaaqyo xoogan ka wadaan ciidankan oo mudooyinka u dambeeyay u baratumanayeen inay la wareegaan duleedka magaalada Baydhabo ayaa waxay sheegeen in markaasi ay qaadayaan tallaabooyinka ugu dambeeyay ee dib u xiraynta wax ugu yeereen cadawga laga saarayo Baydhabo waxayna doonayaan inay halkaas la wareegaan dhawaan ayay ahayd markii laba taliye guud lagu dilay duleedka magaalada Baydhabo walow markii dambe kooxda al-shabaab sheegatay dilka taliyaashaasi asaatay dowladdu waxay ku eedeysay ciidamada maamulka koonfur galbeed inay ka dambeeyeen shirqoolka lagu dilay taliyaashan oo ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo wixii intaas ka dambeeyay dowladda ciidamo fara badan ay geesay duleedka magaalada Baydhabo hasaatay lafta garan iyo ciidamadiisa ayaa aad isku difaacaya waxayna doonayaan inay la wareegaan deegaanada ka maqan gacanta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya xiisada ayaa u muuqata dabcan mid ka sii fogaanaysa iyadoo xaaladdu dalku ay gabi ahaanba tahay mid cakiran dowladda federaalka Soomaaliya ayaa cadaadis waxay kala kulmaysaa xubnaha mucaaradka iyo maamul goboleedyada sida Galmudug iyo maamulka koonfur galbeed Hirshabelle oo ah meel inta badan ay dowladdu gacanta ku hayso ayaa kaliya ah maamulka sida rasmiga ah ee dowladda Soomaaliya gacanta ugu hayso
haddaba waxyaabaha kasoo kordha xiisada dalka oo cakiran iyo maamulka koonfur galbeed oo qaaday tallaabadii ugu dambeysay oo kula wareegaya magaalada baydhabo iyo galmudug oo ururka ahlu sunna iyo maamulka galmudug ay gacanta isla heleen waxaan idinkula wadaagi doonaa barnaamijyadeena dambe muuqaalka meel fog gaarsiiya aad baad u mahadsantihiin